dhawaan waxaa la filayaa inuu dhaco shirweynihii ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soolja shirkaas iyo haddaba sida uu bal hadda qorshihiisu yahay maadaama uu gudoomiyihii ururka suxufiyiinta Somaliland Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto uu dhawaan sheegay in uu u baydhay dhinaca siyaasadda waxaana arrimaha ka wareysan doonaa Yaxye Sheekh Ismaaciil gudoomiye ku-xigeenka ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soolja in bal hadda halkay hadda in waxidii maraya بدري aad baad u mahadsantahay runtii qorshuhu waa bishan aynu ku jirno in shirweynihii ururka suxufiyiinta uu qabsoomo waana halka markasta xubnaha hogaaminaya lagu soo doorto 3 sano runtii waqtigan hadda aynu joogno waji ka duwan ay maalmihii ugu dambeeyay yeelatay saaxiibkay siyaasi Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto marka hore saxafi buu ahaa laakiin hadda waa nin siyaasi ah saan oran karayo sharciga ayaa dhigaya sharciguna wuxuu dhigayaa qofku xubinnimada wuxuu ku waayi karayaa in xubin dawlad loo magacaabo ama uu ku biro wax weeyaan xisbi siyaasadeed iyadoo maalmo kooban ay ka harsan tahay ayuu saaxiibkay uu ku biiray mid ka mid ah xisbiyada sida la ajligeed sharcigu wuxuu dhigayaa in Xuuto gabi ahaanba uu sida kaga laalaabtay Soolja iyo saxaafadaba marka waxaan oran karayaa hadda imika siyaasi Xuuto waxa weeyaan waa ka hayaamay waa maca salaameynina waan ugu ducaynaa halka uu ku socday inkasta saaxiibkay hashi uu 6 sano Soomaaliyeed uu gawaan cidla kaga tagay laakiin waxaan leeyahay Soomaaliya waxa tira toojan in la maala anaga ayaa joogna shirku waa qabsoomaya waqtigiisa buu ku qabsoomaya waqtigu waa kooban yahay laakiin teelo umuu dhigan saaxiibkay waxa uu ka soo doorbiday 6 sanadood shaqadii uu saxaafadda u hayay in uu gaadhsiin kari waayo maalmaha kooban marka sida sharcigu dhigayo gudoomiye hadduu meesha ka baxo gudoomiye ku-xigeenka ayaa shaqada wadaya sidaasana kulay imika aan rabnaa insha Allah waxay bari ka bilaabma in aan u gudagallo in aan amaanadiina loo dhiibay qabanqaabadeeda sidaan u wareejin lahayn aan u gudagallo gudoomiye Xuuto waxaad ku eedaysay inuu cidla kaga dhaqaaqay ururka waxaanu isagu sheegay in gudigii uu magacaabay doorashada qabanaysay Soolja sidoo kale arrimihii isku dubariday sida ogeedna uu dhinaca uga baydhay isagoo arrimaha dhan dhameeyay marka waxaan kaliya ku muuqday muxuu yahay gudida aad imika adigu ii sheegayso sidaad ku maqashay baan ku maqlay sharciguna wuxuu dhigayaa marka gudi qabanqaabo waxa weeyaan waa halbowlaha shirweynaha gudi qabanqaabo marka gudoomiyuhu soo magacaabo in uu boorka hor keeno boorku uu ka doodo la ansixiyo ama la celiyo wax ka bedel kaabis lagu sameeyo gudoomiyuhu ma hadda wax weeyaan sharci kaligii jeebka ugu jira hadda gudida uu magacaabay ii sheegayso lama ansixinin kaligiina go'aan kama laha gudidaasi waxay ku dhaqan galaysaa in golaha la hor keeno golaha marka ay hor keenaya Maxuuta imika ii imanayo gooranay gudidan aan ku wadaa Xuuto ma aha suxufi imika ma aha gudoomiye Soolja waa siyaasi marka ma hadda waxa aan qaataa oo leedahay waxa weeyaan nin siyaasi ah oo xisbi ku biiray gudida uu ku keeno kala doodo kala wax weeyaan muxuu ahaayeen ansixi gudidaas wax allaale iyo wax gudidaas haba yaraatay ka jiraan ma jiraan waayo dhicis bay noqotay dhicisku inta birta loo soo ayuu baqtiyaa ولذلك waxa la rabaa marka inaan hadda anigu aan magacaabo anoo walibana la tashanaya golahayga waxa weeyaan muxuu ahaayay boorka inaanu soo magacaawno gudi sharci ah boorkii isla markaana aan soo hor dhigno oo ay ka doodaan oo iyagu marka ansixiyaan awoodda siyaasadda ee Soolja boorka ayaa iska leh laakiin maanta Xuuto hadduu soo hor fadhiisano siyaasi baan u arkaa aduguna siyaasi baad u aragtaa boorkuna siyaasi buu arkaa isaguna siyaasi buu soo arkaa waxa weeyaan marka Xuuto dhicis buu magacaabay gudida uu magacaabay anigu waxa weeyaan uma arka hadduu ka hor inta aanu ku dhawaaqin uu keenin lahaa oo ansixin lahaa waxa weeyaan sida shuruucii hore uu noogu hor keeni jiray intaan uga doodno kadibna muxuu ahaayay aan u ansixin jirnay baa loo ansixin lahaa laakiin gudidaasi waa dhicis Yaxye Sheekh Ismaaciil gudoomiye ku-xigeenka ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soolja ayaa dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday agaasimihii ururka Soolja oo sheegay inuu xilkaasi maca salaameeyay sarar walba is saaro wax walba is saaro laba togogood ismaan saarin marka laba waji bay yeelan kartaa
أليس هذا قبر قد قبض بالليل وحويان ما أرن أي دي ولالكي إيو يحيى اسكو أوجيهين با ما أرن محوها يي اسكا أمر إلهي كل عضيبة لكن سولشا وحا إلا هذا شرعي جدو ما نلقو باقية يحيى فيسبوك نوغمو إيمانين أنو فيسبوك أنكو مغلي ويكو هربان الله إيشيغ هذا مسي أنو تحقيقي أنو أوغادو waxaan xafiiska la xiriiray waxa la sheegay way ka hor inuu soo gudbiyay warqadda resignation-kiisa xaq buu u leeyahay sidoo shaqada ugu yimid shaqo kale ugu tagaya laakiin muddo bil ah ayaa sida sharciga ah wax weeyaan qof haduu meel mas'uul ka yahay wax weeyaan waajib ay ku tahay inuu muddada wax weeyaan ururkii ama cidii loo shaqeeyaha ahaa ay soo diyaariso cidana ay wax weeyaan muxuu haayay ay shaqadii ku soo wareejiso laakiin inuu wii ka hor shaqadii baan ka tagay ilaahdo axadina la ilaahdo uu shaqo galay kul arrin nooc cunto ma hanti baan u dhiibnay board buu leeyahay waxa weyn xisaabtan baa yaala wax ummad ay leedahay saxaafada ay leedahay baa meeshii wax weyn yaalay shaqo ayaa socotay waxaas oo dhan waxa la rabaa sifii sharciga ahaa ee loogu wareejiyay inuu isaguna ugu soo wareejiyo sida hadda la xaqiijiyayna saxiixi kaliya waxa uu harsan uu muxuu ahaayay sida sheegay la sheegay xuutana sheeg ma saxiixi karo tan intuu ku dhawaaqay muxuu ahaayay inuu yahay xubin siyaasi ah yaxyana waxa weeyaan shaqadii isaga ayaa laga rabaa in uu sideeda ku soo wareejiyo marka waa laba arrimood oo laba nin oo mas'uulo saaxiibaday oo wax weeyaan aan muxtaram ugu hayno oo mas'uuliyad u dhiibnay laakiin aad moodo inaanay teelo iyo abaal iyo naxariis midna aanay ururka u galin laakiin ururku taa iyo ka badan buu soo maray waana soconaysaa shaqadiisa insha Allah ugu dambeyntii kolley fulaxantii ma moogana dadka qaar si isku oran karaa in gudoomiye Yaxye wuxuu wadaa qorshe una malaha dhinaca dawladdu ay soo dhabar taabatay oo arrimahan oo dhan markii hore uu la socday imika markii xuuto ku dhawaaqay arrinta siyaasadda galayo ayuu arrinka kale u sacbatumaya maxaad ka leedahay arrinta horta badriyo Soomaalidu waxay tiraahdaa in Ilaahay la baryo oo hoos joogay Yaxyana in badan wax ka taqaana nin dawlad lagu xanta ma waligeena la igu maxabanin ilaa iyo haddana la igu xaman maayo dawlad aniga soolta iyo wax weeyaan saxaafadda wax ay dhiibatay masiirka maanta aan arkayna mas'uuliyadda ay saaran nin kale uga daba fadhiisan maayo dawladana xaasha waligeena la igu maxaman mana rajaynayeen la igu xanto dadka aad sheegaysay wax weeyaan aad leedahay dawladda miyay soo dhabar taabatayna dhabar la taabto anigu dawladdu ma lihi Badri Koosar Maxamuud Telefishinka Sahan